Filistin'deki işgal amarka lagula wareegay dhulkii Falastiiniyiinta dulmiga haysta dadka Falastiiniyiinta kaas oo ah naburo dhigaya iyo in la sii wado dhaawac ku salaysan jinsiga gamcaha wasaqda kuwaas oo dhammaanba la wareegay magaalada Jerusalem halkaas oo ay ka jiraan 3 diimood oo waaweyntaas oo si joogta u kordhinaysa xiisadda iyo isla xisaabtanka dadka reer Falastiin waxay in badan sheegayeen inay ka soo horjeedaan siyaasadda Israa'iil dulmiga rabshadaha iyo hanjabaadda haysatay in ka badan haaf qarni waxaa jiray heshiis la diiday kaas oo ahaa dhammaan baysdhibis kaasoo la isku dayay dhammaanba in laga jaro khariidada Falastiin kaasoo lagu magacaabay jiray Deal of Century Israa'iil waqtigan waxay dadaal ugu jirtaa inay sii haysato dhulkay xoogga kula wareegtay iyo sidoo kale heshiiskan oo u fududeynayay wada shaqaynta waddanka Turkiga ma taageeri doono qorshe kasta kaasoo ay ogoleen dadka Falastiiniyiinta sidoo kalena aanan siinin xaqooda ka qayb qaadashada wadamo badan ciyaarta ka socota gobolka macnuhu maahan inay ka baxsan tahay Israa'iil dadaalkan taas oo lagu saleynayo xuduudda caalamiga parametreleri aşındırma çabalarına hizmet etmenin ötesinde anlam taşımıyor. wadamada ku dhawaaqay inay safaarad ka furanayaan magaalada Jerusalem iyo wadamada ku hamiyaya waxay xadgudub ku tahay sharciga xalinta caalamiga iyo sharciga caalamiga kaliya waxaad ka shaqaysay dhibaatada ka taagan halkaasi inay ka sii darto dhibaatada ka taagan Falastiin kaliya waxa lagu xallin karaa iyada oo la sameeyo dawlad madax bannaan madaxweyne iyo sidoo kale in xadka Falastiin lagu asteeyo taariikh markay 1967 taas oo dhacaysa bariga magaalada Jerusalem bir Filistin devletinin kurulmasıyla çözülebilir waa in la raadiyaa xal halkii laga gadali lahaa waxaan macno lahayn iyo in kaliya loo sameeyo hal dhinac cadaaladda adaletsiz